munaasabadan oo lagu maamuusayay 10 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska shirkadda TNS ee Soomaaliya laguna bixinayay abaalmarinada guuleystayaasha sanadkii dhamaaday ee 2022 ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda, siyaasiyiin iyo dadweyne kale. shirkadda TNS oo ah shirkad ganacsi ayaa bixisay adeegyo kala duwan, waxaana mas'uuliyiinta shirkaddu ay sidoo kale sheegeen in hadafkoodu uu yahay in bulshadu ay hesho dhaqaale madax bannaan. agaasimaha guud ee shirkadda TNS Saciid Maxamed Xasan, madaxa suuqgeynta ee shirkadda Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil iyo Ciid Daahir Maxamed oo ah madaxa guud ee Soomaaliya ee shirkadda TNS ahna madaxa Geeska Afrika ee shirkadda ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay. aniga waxaan rabaa mowduuca kaliya aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay shirkaddaani faa'iidooyinka ay bulshada u hayso. bulsho fara badan ay hadda ka faa'iideystay, kuwa kalena dabcan ay rabaan ama aan u baahanay inay ka faa'iideystaan. shirkaddaani waxay soo saartaa ama waddanka keentay alaab herbal ah tayo leh oo qof kasta oo bilaadan u baahan yahay oo runtii nafaqo iyo maartay minerals iyo macdano fara badan ay ku jiraan. mishinkeenuna waxa weeyaan inaan profile garayna ama aan siino mujtamaca adduunka ku nool quality product and quality service. waa kow lambar 2 inaan siino education kaas oo kuwa aan ku bedelayno garashada ama hagid ama garaadka loo yaqaano garaadka hagidda, tilmaamidda, toosinta iyo tayeynta mujtamaca bilaadanka garaadkooda. aqoonna aan waxaan ugu talagalay inaan ku hubayno ama aan ku qaabayno mujtamaca adduunka. maanta waxa halkeen la joogaan arki doona insha Allah dad badan oo shaqada natiijo fara badan ka sameeyay. ganacsigeena ama shirkadda TNS intaan soo shaqeynay waxaan u abuurnay dad fara badan fursado shaqo, taasoo abuurtay in dhaqaalaha bulshada uu kobco, dadkeenuna ay helaan dhaqaale fara badan. dhaqaalahaasina uu shahlo dadka inay helaan karti iyo awood ay noloshooda wax ku qabsadaan, taasoo ka qayb qaadatay dhammaan dhaqaalaha guud ahaan ee dalka. intii ay munaasabada socotay ayaa waxaa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan kuwaas oo lagu talagalay dadkii guuleystay. ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay nabadoon Axmed Maxamed Ciidey, xildhibaan Cabdixakiin Xaaji Cali oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Zahra Xasan oo kamid ah dadka ku guuleystay cimrada. waxaad markaa u jeedaan dadkan quruxda badan oo gabdho iyo wiilal leh ee libisan ee dhaqaaluhu ka muuqdaan. TNS intaas fasal ugu baahna fasalkan oo baahnaan leeyahay. waxaan rabaa inaan idin sheego wax yar oo ay uga duwan tahay shirkadaha kale iyo shaqooyin kale ee magaalada Muqdisho ka jira. waxa weeye intiina maanta halkaan fadhida qof kasta kamid ah wuxuu fursad u haystaa inuu berito ka maalin Saciid Maxamed Xasan bedelo. intan alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalo intan oo qofood oo buwaagtoodii soo dhaqay soo nadiifiyay alxamdulilah rabbil caalamiin. insha Allah dawladda ma waxa taagan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala looga mahadnaa inay soo laabatay oo uu jiro sidaas oo kale sanadkaana in lagu guuleysanayo cumrada. marka aad iyo aad aan u faraxsanahay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.